maanta waa maalin barakaysan, waa maalin khayraysan, waa maalin dadka reer Koonfur Galbeed farxad iyo bogaadin iyo hambalyo ay ku jiraan. waa maalin dadka Soomaaliyeed oo dhan ay dhibaatadii shalay ay u geysteen argagixisada oo ay hoos la fiirinayeen ay madaxa kor uga soo qaadeen. waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan inta hambalyo iyo bogaadin iyo ammaan iyo dhiirigelin aan uga diro ciidamada qalabka sido oo habeen iyo maalin u taagan difaaca dalka, difaaca shacabka, difaaca dowladnimada, difaaca qarannimada Soomaaliyeed, difaaca magaca Soomaalinimada, habeen iyo maalin u taagan, u dhimanayo, u dhiboonayo, u dhafraayo, u baahanayo, roobka ugu da'ayo oo sharafta leh ciidamada qalabka sida inaan inta bogaadin iyo hambalyo baan uga diraan raba. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. dalkiinni iyo dadkiinna waxaad u soo hayseen guul, waxaad muujiseen geesinimo, waxaad muujiseen dadaal, waxaad muujiseen gobonnimo, waxaad tihiin shahiidiin, waxaad tihiin gobonnimo u dirir, waxaad tihiin xaq u dirir. waxaa loo baahan yahay dadka shacab iyo ciidan gacmaha in la isqabsado, la midoobo, loona midoobo midnimada iyo difaaca iyo dowladnimada iyo ilaalinta diinta ummadda Soomaaliyeed in loo wada istaago. waa ogtihiin maanta shacabka Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo meel walba uu joogo. dhibaato yaa waxaa ku hayo dad argagixiso ah, arxan laawo ah, iimaan laawo ah, burcad ah, iimaan lahayn, diin lahayn, naxaynin, ehel lahayn, qaraabo lahayn, wax looga dacwoodo lahayn. yaa maanta ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogto dhibaato ku hayo. sidaas darteeda si dhibaatada looga baxo, dowladnimada Soomaaliyana u soo noqoto, magaca Soomaaliyeedna u soo noqdo, horumarka iyo mashaariicda iyo gobonnimadii aan adduunka kula dhaqmaynayna ay u soo noqdaan, waxaan u baahannahay annaga oo shaqadaannada iyo howlahaannaga iyo mashaariicda iyo horumarinta iyo dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo hor u socodkaba ka shaqaynayno wixii wanaag ah oo ummadda Soomaaliyeed qabanayno, inaan u wada istaagno difaaca dalkan, inaan u wada istaagno ka hortagno dadka maanta caqabada ku ah dowladnimada Soomaaliya, inaan garab siino ciidamada qalabka sido, inaan hor soconno, inaanan u kala harin dowlad iyo shacabo, aan meel walba ay joogaan ciidamada la taageero, lala howlgalo, nin walbaba wixii awoodiisa ah uu gacan ku siiyo. maxaa yeelay waxa ay u taagan yihiin ay mas'uuliyaddeeda qaateen oo ay ilaalinayaan waa qarannimada Soomaaliya. waxa ay ilaalinayaan waa astaantii Soomaali ay lahayd, maanta calankaana ilaalinayaan. waxa ay ilaalinayaan oo u taagan yihiin oo loo dilayo waa magacii Soomaaliya. waxa ay u taagan yihiin oo loo haysto oo habeen iyo maalin loo dhibaataynayo waa shacabkii Soomaaliyeed. yaan baabi'inaynaa, baahi baan ku dilaynaa, qaraxan ku dilaynaa, xabad baan ku dilaynaa, gumaysi baan ku dilaynaa. meel aan u dhaafayno u roon ma jirto wey. waxay u taagan yihiin oo u dagaalamaan. sidaas darteeda qof kasta oo Soomaali ah, especially qof kasta oo reer Koonfur Galbeed waxay mas'uuliyad ka saaran tahay inuu tuutihiisa xirto, inuu dabagaabkiisa gashto, inuu qorigiisa qaato, inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo dowladdiisa uu difaaco, gobonnimona uu ku noolaado. qofkii asagoo intaas difaacayo oo u taagan ku dhinto waa shahiid, waa ahlu janno. diinta waa taqaanaan, culummada waa fadwootay. ninka inta soo duula maanta meeluu ka yimid aan la aqoon,
وأركيسين ميدتك كوي تبنك أها ومركز لهاي وكو دورك كجري كجري دad Soomaali ah aan Soomaali ahayna ku jiray maxaa uga jira daynuunay maxaa baydhabo uga jira maxay naga soo doonay awal dalkoodii yaa haysto waa dulmi way waxay u yimaadeen sidaas darteed marka shacab iyo dawladba waxaan rabnaa inaan u wada istaagno garabna siino ciidamada qalabka sida waxaan runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta shucuurta dadka shacabka ah iyo maamulkaba ee baydhabo joogo maanta shucuurtooda say u muujiyeen markii dagaalka lagu soo qaadayay ciidamada waa markii salaad soo xilin tukaday salaamu calaykum liiray isla markiiba ilaahay amarkiisa caadayba ii tahay salaad soo markii aan tukado waxaan wareystaa on la hadlaa on report ka qaadaa meel kasta oo ciidan joogo oo koonfur galbeed saraakiisha jooga xalay maxaa ku barideen xalay maxaa ku barideen xalay maxaa ku barideen nin walba wuxuu qabay iyo wax waagu u bari markii salaad subax la tukado warbixintii ugu horeysay oo aan helay waxay ahayd tii daynuuna iyo project inay xabad ku bilaabatay ciidamadii waxaa ilaahay mahadiisa marka maanta oo farxad iyo sharaf ah si kasta u badan yihiin iyo si kasta awood u leeyihiin inay joogaan ciidamo geesiyaal ah oo dagaal yaqaano oo dhiiran saraakiil wadaniyiin ah wasiirka amniga uu hogaaminayo inay meeshaas ay u jiifaan qorshahoodana uu yahay inaysan mar dambe aysan shabaab dambe uusan deegaanadan looga cararin loogana tegin ay tahay qorshihiisa marka waxa farxadda leh oon maanta aan rabo inaan bogaadiyo oon hambalyeeyoon aada ugu faraxsanahay waxaa weeye markaas salaad subax la tukanayo xabadda ay bilaabanayso dadkii baydhabo joogay kulli meeshay joogeen nin kasta oo wax garanayo ninkii mooto qabay mootuu raacay kii baabuur qabay baabuuruu raacay kii aan intaba haysanin orod u istaabtay nin walba meeshuu joogo ka orday qof dilayna male qof abaabulayna male markii la maqlay shacabkiina waa taa aragteen oo isa soo baxeen waxayna tusaysaa bislaashaha iyo ka go-naashaha dadka ay ka go-an tahay inay cadowgan iska dulqaadaan ayayna tusaysaa runtii waxayna tusaysaa oo nagu dhiiragelinaysaa oo ciidamada naftirkooda ay mar labaad ay u noqonaysaa sharaf kale sida loo garab taagan yahay oday dhaqan dhalinyaro askar wasiiro xildhibaano shacab 20 kilomitir yaa waxaa loo socday 20 daqiiqo 18 kilomitir 20 kilomitir ay jirtaa meesha lagu dagaalamayo waxaa loo socday 20 daqiiqo nus saac yaa lagu tagay kii baabuur wata iyo kii ordaayay nin walba meesha soo istaagay taasaa marka yaa waxay tahay wax lagu farxo waxay tahay wax la bogaadiyo waxay tahay wax rajo ah oo qurux badan inay muuqato waxay tahay wax maxay ahaydee lagu faano maanta inay dhaceen marka mar labaad iyo mar saddexaad waa bogaadinayaa intaas kadib waxaan tacsi tiiraanyal u dirayaa dadkii shahiidiinta ahaa ee dagaalka ku dhintay ilaahay naxariistii jannah ka siiyo masarkaal ha noqdo ama askari ha noqdo dadkii iyo ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhinteenna samar iyo iimaan allah naga siiyo geerida waa xaq qof aan dhimanaynin male qof waktigiisa dhaafaya male laakiin waxaa ugu fiican sidii asxaabtii ay sheegeen in mar walba waa dhimanaysaa adoo sariirtaada saaran intaa dhiman lahayd adiga oo dalkaada iyo dalkaada u halgamaya gobonimo inaad ku dhimato yaa fiican samir iyo iimaan allah naga siiyo maantana taariikh iyay ka tegeen
waana runtii dadka ku dhintay ilaa hadda la ii soo sheegay waa 3 sarkaal oo booliisa iyo nin dhaawac ah oo asagana dhaawac u dhintay marka intaba dad aan aqaano way oo runtii dadkii soo halgami jiray oo dalkan u soo halgamay oo u soo dagaalamay oo weligood shaqaal la dagaalamayay ah oo 100 jeer ku dhaawacmay oo 100 jeer maxay ahayd u soo dagaalamay haddana gobonimada ayadeeda ku dhinteen maanta ayaga sharaf ku nool waxaan ilaahay uga rajaynaynaa naxariista janno intii ku dhaawacantayna caafimaad iyo inuu ilaahay siiyo nasteexo oo ay ilaahay barmadow uu uga dhigo wixii soo gaaray yaa ilaahay u rajaynaynaa inta fiyow oo hadda furunta ku jirtana waxaan u rajaynaynaa guul waxaan u rajaynaynaa inay horey u socdaan waxaan u rajaynaynaa inay dalka xoreeyaan annagana waa garab taagannahay annaga dhan baa ila joogno qayb kasta iyo meel kasta oo howlgal uu ka socdana waa tegaynaa waana ila joogaynaa insha allahu aada iyo aad ay u mahadsan yihiin